aaminsan tahay? waxaan u arkaa dhaqan ee bulshada ku dhaqanto sharciga isku wada raaceen bulshada oo dhan inay ku dhaqmaan ee dadkana ku dhaqaan. Dastuurka maxaad ka aaminsan tahay? dastuurka waxaa ka aaminsanahay inuu yahay heshiis bulsho ay ku heshiisay inay maaragtay si u dhaqmi lahaayeen dhaqaalaha siyaasadda iyo maamulka inay ku heshiisay inuu yahay dastuurku lafdhabarna uu yahay bulsho walba oo maxaa la dhahay dal walba iyo bulsho walba ee dunida ku nool inuu dastuurku uu yahay lafdhabarka ee bulshadu ku tiirsan tahay. Dastuurka maxaad ka aaminsan tahay? dastuur waxaan ka aaminsanahay waa dastuur waxaa waaye waa axdi qodobeysan oo ay ummad ama ummad meel wada degan ama dal lagu hogaaminayo yani ay wada dhigteen waxaa waaye dastuur asalkiisa yani markii ugu horreysay wuxuu ka imaaday waxaa waaye dastuur waa kelmad Faransiis ah oo boqoradii iyo muluugta ay isticmaali jireen oo waxay ku qori jireen yani waxa la dhihi jiray diiwaanka lagu qoro yani halkii dagaalada iyo waxyaabihii la galay iyo baashidii marka ereyga dastuurka casriga marka waxaa la dhahaa waa axdi qodobeysan kaasoo lagu hagayo nidaam kaasoo dhigaya macnaha ama nidaam dal kala hago yani dad meel wada degan oo yani nidaam isku maamulayaan qaabka doorashada u dhaceyso qaabka yani iyo xuquuqda muwaadinka uu yeelanayo xuquuqda muwaadinka dalkiisa uu ku yeelanayo asaga iyo xuquuqda muwaadinka dalka asaga uu ku leeyahay dastuurka intaas ka aaminsanaa. dastuurka maxaad ka aaminsan tahay? dastuur waa heshiis bulsho ka dhaxeeya kaasoo xadidaya wixii anaga heshiiska aan ku nahay bulshada dhexaanteed haddii aan dowlad aan qaadanayno ay tahay mid baarlamaaniya mid ra'iisul wasaare leh mid fulin leh oo kaliya